Shaki kuma jiro in bisha barakeysan ee Ramadaan ay tahay bisha ugu fadliga badan sanadka oo dhan, waayo waa bil cibaado iyo bil khayr. Waa bishii naxariista iyo dembi dhaafka, waa bishii uu Eebbe dhaafayay dembiyada oo dhan. Laakiin waxaa jira khalad guud oo ka dhex dhaca dadka muslimiinta ah, waxaana xusid mudan in Eebbe dhaafo dembiyada oo dhan, balse waxaa jira hal dembi uusan marnaba kuu dhaafi doonin. Marka hore waa inaan dunuubta u kala qaadnaa 3 qaybood. Waxaa jira dembi aad naftaada ka gasho, sida inaad dayacdo cibaadada Alle ama aad ilowdo qaar ka mid ah salaadaha faralka, ama xitaa aad si caajisnimo ah uga tagto salaadaha. Taasna waa dembi adiga iyo Ilaahay idin dhexeeya, adiga oo keliya ayuu dembigan ku yaalaa, cid kalena waxba lagama weydiinayo. Dabcan tani cudurdaar uma noqonayso inaad dembigan samayso, laakiin waa inaan ka socnaa nooca labaad ee dembiyada, taas oo ah dembiga aad dad kale kula kacdo, sida inaad dulmiso asxaabtaada kuwa fasalka ah, ama inaad lacag ka baaddo qof ama xitaa aad xoolo agoon iska cunto. Dembiyadaas oo dhammi waxay hoos tagaan dembiyada aad dad kale ka gasho, waxaana iska caadi ah in muslimiinta badankoodu ay rumaysan yihiin in soonka iyo cibaadada uu Ilaahay ugu dhaafayo dembiyada ay dad kale ka galeen. Tanna gebi ahaanba waa khalad. Eebbe wuxuu dembiyada uu dhaafo u qaybiyaa 2 qaybood, mid u baahan cibaado ama toobo, iyo mid u baahan inaad cafis ka dalbato ruuxii aad dembigaas ka gashay, dembiga uu Alle marnaba kuu dhaafi doonin. Marka hore, dembiyada Ilaahay ku cafiyo cibaadada waa dembiyada uu qofka kula kaco nafsadiisa, sida salaada uu qofka iska indhatiro, ama uu xitaa ku dhaco waxyaalaha xaaraanta ee Ilaahay naga reebay. Inkastoo ay taasi jirto, haddana Eebbe dhammaantood waa uu kuu cafin karaa. Bal qiyaas haddii nin maskiin ah oo lagu leeyahay lacag aad u tiro badan uuna u yimaado ninkii deynta ku lahaa, uuna yidhaahdo waa inaad 30 maalmood gudahood sidaas iyo sidaas samayso. Haddaad samaysana waxaan kuu dhaafi doonaa dhammaan deymihii aan kugu lahaa. Sidaas oo kale wuxuu sanad kasta Eebbe 1 bil oo ka mid ah ina siiyaa fursad uu dembiyadeena ku dhaafayo. Tusaalaan aan soo qaadnay waa mid ka sareeya Eebbe. Walillaahi almathalu alaclaa. Qofkii xaqdaro ku cuna xoolo uusan lahayn ama dulmiya qof kale, ruuxaasi wax dembi dhaaf ah uma sugnaanin, ilaa uu cafis ka dalbado dadkii uu qaladkaas ka galay. Eebbe wuu cafiyaa dembiyada addoonka oo naftiisa ka galo, laakiin dembiyada uu dadka ka galay waa inuu iyaga cafis ka dalbadaa. Dembiga saddexaad ee ugu dambeeya waa dembiga Eebbe uusan weligiis kuu dhaafi doonin, taas oo ah inaad Eebbe wax la wadaajiso. Dembiganna waa dembiga keliya ee Ilaahay inoo sheegay inuusan weligiis cafin doonin, sida uu Qur'aankiisa ku yidhi: Inna Allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna daalika liman yashaa. Ilaahay marnaba ma dhaafo in wax lala wadaajiyo, laakiin cidduu doono ayuu u dhaafaa intaas wixii ka soo hara. Gabagabadii, dhammaanteen waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu dembiyadeena dhaafo, oo uusan naga dhigin kuwa naxariistiisa ka xarimay bishan barakeysan ee Ramadaan.